maanta duhurka markay ahayd salaada jimcaha waxaa jirtay laba masaajid ayaa jirtay masaajidka ugu weyn magaalada Christchurch oo ugu duqsan iyo masaajid kale oo yar ah labadaba la weeraray isku markaas mataqaana dadkii ay salaadii ay galayeen dhaawacay dhimasho weyn ka timid hadda sida la sheegay waxaa la xiray la qabtay 3 nin iyo naag oo lagu tuhmaayay in ay ka dambeeyeen Soomaalida sida hadda la sheegay waxa 3 qof oo ku dhimatay laakiin ilaa hadda ma aragtay lama تأكيدين دعوة بدنا جرو مركا ولي وحوي very early وقت وحوي وردن ما لهايو markay noqoto walaalo masaajidada al-nuur masaajidka la yiraahdo iyo suburban linwood masaajidadan ma Soomaaliba gacanta ku haysay maamulkooda maya masaajidku wuxuu ka dhaxeeyaa dad badan oo dhan oo kala duwan jinsiyada kala badan waxaa ku jiray dad oo wadamada carabta ka yimid sida Suuriya iyo maxay ahayd Jordan iyo dad kale oo Soomaalida ka mid tahay Bangladesh Malaysian Singapore waxaas dhan ku jira dad muslim nooc kasta ku jira ilaa hadda ma jiraan dad Soomaaliyeed oo eheladoodii ay ku jiraan oo aad xiriir la sameyseen haddii aad ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool magaalada Christchurch magaalada Soomaalidu way ku yartaa marka kulligan waa soo naqaana 3 qof oo hadda la leeyahay way dhinteen Allah on xariisay waa aqaana kulligood laakiin ilaa hadda waxaan sugaynaa hadda waxa maadaama ay tahay arrin police ka tahay waxa la sugayaa formal identification in dadkii la hubiyo iyo systemka sida loogu talagalay laakiin sida oo informalka ama sida oo aan jireysnayn waxa la ogyahay 3 qofood in Soomaalida ka dhimatay horta haween kuma jiraan sida hadda waqtigan hadda la maraayo waxa way waa 2 nin iyo wiil yar oo aan runtii aan ogeyn da'diis intay tahay laakiin sida aan maleynay 5 sano ka yar markay walaalo noqoto kulleyba sida sheegtay dadka dhaawaca ah iyo dadka dhimashada iyaga waxa gacanta ku haya laamaha booliska waxaan u fahmay wali lama xaqiijin karo shakhsiyadda qofka dhabta ah iyo magaciisa waxaas oo dhan ilaa hadda lama xaqiijin maadaama ay hadda wixii ay dhaceen markay magaaladan waxa lagu soo toosay markii labadii galabta inoo ahayd marka wali waxa way kala daldalkii lagu jiraa meedka iyo dhaawacyadii dhan meesha Christchurch salkeeda waxa furana leeyahay 12 qaybood oo qalitaanka ah oo intoodaba busy wadayiin dadka qaar waxa lagu leeyahay meelo kale taag loo diray maadaama isbitaalka uu qaadi waayay intii dhaawac iyo mataqaana ay dhimasho dhan marka wali waxa way very early waa inaan mataqaana lagu siiyo wax sax ah oo la akiisan yahay marka